midowga Yurub ayaa war ka soo saartay xaaladda cakiran ee Soomaaliya xilli digniin u dirtay siyaasadda waa siyaasiyiinta curyaaminaya wadahadallada ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. midowga Yurub ayaa idin kulul u soo jeedisay hogana tuuray dhinacyada Soomaalida ee ugu hordhegan qabashada doorashada dalka, waxaana loo jeediyay erayo adag. marka danta gaarka aad ka hormarisaan danta guud ee dalka, idinka ayaa iska fogeeyay inaad matashaan dadkiina kuwa wada hadalka wax u dhimaya ama saameynaya rabshado. waxaa la kulmi doonaan tallaabooyin la xiriira ficiladooda, waana hanjabaad adag ayaa lagu yiri war ka soo baxay midowga Yurub. waxaa intaasi ku daray madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka Soomaaliya waa inay qabtaan waajibka ka saaran dadka Soomaaliyeed isla markaana ay si degdeg u qabtaan doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha. ma jiro wax bedel ah, lama oga geediyo socodka hal dhinac, mana heli doono geediyo socodka hal dhinac ay taageerayno. ururka midowga Yurub ayaa u hanjabay hogaamiyaasha Soomaalida, gaar ahaan kuwii wiiqay wadahadaladii doorashooyinka, inay la kulmaan ama ay weliba la kulmi doonaan cawaaqib ka dhasha ficilada ay sameeyaan. war-saxaafadeed xalay ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka midowga Yurub ee Joseph Borrell ayaa loogu baaqay madaxda Soomaalida inay sameeyaan tanaasul horseedii hanaan doorasho oo si degdeg ah inay si nabada talada loogu kala wareego iyadoo la raacayo heshiiskii 17 Sebtembar. dhinaca kale midowga Yurub ayaa sheegay in isfaham la'aanta hadda ka dhex jirta hogaamiyaasha Soomaalida inay si weyn dib uga dhigayso xawaaraha isbedelka ay si dhaqso ah ugu baahan yihiin dadka Soomaaliyeed. madaxda dowladda federaalka iyo weliba maamul goboleedyada ayaa loogu baaqay inay ixtiraamaan mas'uuliyadda ka saaran shacabka Soomaaliyeed, isla markaana ay si degdeg u qabtaan doorashada baarlamaanka iyo weliba tan madaxweynaha Soomaaliya. bayaanka ka soo baxay midowga Yurub ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha siyaasadda ay naftooda ay ceebeeyaan si ay u matalaan muwaadiniintooda, isla markaana ay dantooda shakhsiyadeed ka hormarinayaan danta guud. kuwii u yaqaya wadahadallada ee micnaha badda ay adeegsanayaan qalalaaso waxaa lagu qaadi doonaa tilaabo sharci, kuwaasoo wajahaya cawaaqibxumada si kastaba ficilada ay ku dhaqaaqaan, ayaa lagu yiri warka shalay ka soo baxay midowga Yurub. madaxda Soomaaliya ayaana weli heshiis ka gaarin doorashada baarlamaanka iyo tan madaxtinimada kadib markii bishii Febraayo sanadkii dhamaaday madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ku eka. midowga Yurub ayaa sida la sheegay waxa uu dhaqaale aad u badan ku bixiya dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba howlgalka ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya. si kastaba dowladaha shisheeye iyo weliba sida la sheegay ayaa waxay ku hayaan faragelin qaawan arrimaha doorashooyinka dalka. beesha caalamka ayaana waxaa maalmihii u dambeeyay ka soo baxaya warqado isdaba joog ah, kuwaasoo dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ee gobolka Banaadir looga digaya in dalkan ay geliyaan qalalaase amni darro, maadaama siyaasadda Soomaaliya ay tahay mid cakiran. Soomaaliya ayaa wajahaysa marxalad adag oo ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka weliba xagga amniga ee caasimadda Muqdisho oo ka dhacaysa doorashada baarlamaanka. waa doorashada dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo kuraasta baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sharci-dejiyaasha dalka. waxaana midowga Yurub iyo weliba beesha caalamka dhammaan ay dowladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada dalka ku cadaadinayaan heshiis waarta laga gaaro khilaafka doorashooyinka hareeyay, maadaama Soomaaliya la doonayo in doorasho ka dhacdo doorashooyin si aad ah lisuwada ogol yahay. diyaar garowga doorashada kuraasta baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa laga dareemayaa degmada Baraawe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo aysan weli muuqan saansaan ay Soomaaliya doorasho ka dhacaysa. ayaa waxaa diyaar garow aad loogu dareemayaa maamulka Koonfur Galbeed uu hogaamiyo laftigareen, kaasi oo ah degmada Baraawe oo ah magaalooyinka laga soo dooranayo kuraasta xildhibaanada baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ku matalaya. gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu xaqiijiyay inay diyaar u yihiin in degmada Baraawe ka dhacdo doorashada kuraasta baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed. amniga guud ahaan ay degmadaasi aad u sugeen. degmada amnigeedu waa 100%, waxaana mar walba aan ciidamada qalabka sida militariga, AMISOM iyo ciidamada kale oo kala gudbisan sida booliskiina mas'uuliyadda dhammaanteena aan isugu xiranahay oo si wanaagsan aan uga shaqeyno oo aan sugayno amniga si in loogu qabto doorashooyinka guud ee qaasatan ka badan aan leenahay, qeybaha ugu badan aan leenahay in halkaan ugu qabtaan rajeynayno. tahay muxuu ahay inuu amniga 100% uu yahay, ana muxuu ahay amniga 100 aan ka shaqeynay min muxuu ahay Baraawe iyo nawaaxigeeda. ciidamada qalabka sida mar walba ay diyaar habeen ay degan yihiin magaalada Baraawe ka baxsan iyo
boorkii banaankiisa iyo meelo kala badan oo magaalada dhan gacanta ku haya ciidamada militariga iyo amisom iyo booliska. booliska wuxuu joogaa magaalada iyo SNA naftigeeda magaalada u badan tahay iyo amisom waa mahadsan yihiin si wanaagsan ayay garab noo siiyaan ciidamada qalabka sida SNA ee degmada Baraawe oo ayagana si wanaagsan maanta u wadaan howlaha cadowga mar walba habeenii maalin u bariyaan duurka meelaha cadowga ay degan yihiin ay ka shaqeeyaan bay mar walba cadowga ka shaqeeyaan wayna ku mahadsan yihiin ciidamada qalabka sida si wanaagsan anoo u diyaargaroobeyna doorashooyinka ka dhici doona degmada Baraawe xagga kuraasta baarlamaanka ee aqalka hoose iyo 26 ilaa iyo 27 waxaa kale gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda degmada Baraawe oo sii hadlay ayaa sheegay in gebi ahaanba deegaanada ku xeeran degmada Baraawe weliba guud ahaan degmada aad u sugan amnigeeda iyadoo sheegay inay diyaar u yihiin in baarlamaanka kuraasta ku matalayo koonfur galbeed ee ka dhacda degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose waxayna sheegay inay diyaar u yihiin waxaan uga mahadcelinayaan dowladda federaalka oo hogaamiya maxamed cabdullaahi farmaajo weliba maamul koonfur galbeed uu hogaamiye Laftagareen oo hormuud u yahay iyo maamulka koonfurta gudoomiyaha baarlamaanka koonfurta Soomaaliya Ali Faqi iyo dhammaan xildhibaanada iyo wasiirada iyo dhammaantood iyo maamulka koonfurta galbeed diyaar u yihiin in muxuu ahay amnigeeda sugan yihiin madaxdiisa iyo gudoomiyaha baarlamaankana aad iyo aad ay degmada Baraawe ugu shaqeeyeen xagga amniga xagga meel walba ay ugu shaqeeyeen haddana amnigana aad iyo aad loogu kalsoon yahay oo Baraawe hadda qofka timaada hal xabad kush kama dhees macnaha waxayna ugu dayeen Baraawe waa magaalo amni ah Soomaaliya marka la soo wada koobo oo dhan waa magaalada kaliya oo maanta xabadna ka dhicaynin lana soo weerari karin oo amnigeedana boqolkiiba uu yahay oo wax dhibaatana ka dhicaynin oo macnaha taasna ku timid madaxda qaranka iyo gudoomiyaha baarlamaanka koonfurta Soomaaliya iyo wasiirada xildhibaanada sida wanaagsan iyo maamulka koonfurta sida gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo dhammaanteen oo iyo maamulka degmada iyo shacab weynaha reer koonfurta amniga ayaan ku sugnay maanta waxaan leenahay doorasho heer madaxweyne qaranka oo lagu soo bakaraa waxaan leenahay ku soo dhawaada degmada Baraawe cid alle cid doorasho walba oo lagu qabanayo diyaar waxaan u nahay inaan soo dhaweyno waxaana howshaasi aad iyo aad guushaas soo dhameeyey Cabdicasiis Laftagareen iyo gudoomiyaha baarlamaanka koonfurta Soomaaliya aad iyo aad ugu mahadsan waxaan ugu diyaar garoobnay ciidamada amisom oo walaalaheena iyo ciidamada SNA waxay bariyaan habeenkii magaalooyinka ay naga oo hadda u dhow Baraawe suurooyinka ka baxsan oo codka nabadgelyada gacanta ku si kastaba hadalka mas'uulkan ayaa ku soo aadaya iyadoo degmada Baraawe ay kamid tahay goobaha lagu dooranayo kuraasta ama ay ka dhacayso doorashada kuraasta baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya.